xaflad ballaaran oo uu soo abaabulay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed laguna soo dhaweynayay kalsoonisiinta ay mudanayaasha baarlamaanku siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub laguna dhiirigelinayay in mudanayaashu ay kalsooni siiyaan xukuumadda uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka warfaafinta mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso, xildhibaano maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Nuur, gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwo Caasho Cumar Geesdiir iyo xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur oo isagu ku hadlayay magaca dhalinyarada ayaa ugu horreyn uga mahad celiyay mudanayaasha baarlamaanka isku tanaasulka ay u sameeyeen kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay dhalinyaradu inay yihiin dadka ugu baahida badan in amni la helo. waan idinkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad kasoo qaybgalkiina aad naga soo qayb gasheen munaasabadadan anugu magac darnay soo dhaweynta kalsoonisiinta ay siiyeen xubnaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha. waan idinkaga mahad celinaynaa munaasabadadan sida aad ka arkaysaan boorkeedaba waxay kusaysaa ama anugu talagalnay inaan ugu mahad celino xubnaha xildhibaanada baarlamaanka isu tanaasulkoodii iyo hor u kici ay sameeyeen maadaama dalku daalan yahay, bulshadu daalan tahay, maalmihii lasoo dhaafana aan dalab ama baaq ku aadan in hore loo socda aan saxaafadda u marnaynay. waan ku faraxsanaha maanta inay qaar badan oo ka tirsan xubnihii baarlamaanka ay nagala soo qayb galaan. waxaan ugu talagalnay inaan idinkaga mahad celino idinna waad ku mahadsan tihiin. nabadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa u wada baahan tahay, laakiin anagu waxaan qabnaa inaan leenahay baahi ka duwan bulshada inteeda kale. saas waxaanu leeyahay waxaad ogsoon tihiin cidda ka qayb qaadanaysa ama dhibta ugu xooggan iyo kasoo gaaraysa dagaalada dhacaya waa dhalinyarada. gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwo Caasho Cumar Geesdiir oo iyana ku hadlaysay magaca haweenkii xafladda ka soo qayb galay ayaa sheegtay in kalsoonisiinta ay mudanayaashu siiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ay ka baabi'inayso walwalkii ay ka qabeen xildhibaanada kala daadsan ee uu shacabku eeganayo. aad ugu dadaalay, is urursaday, ka fekeray Soomaaliya dhibaatada haysata maanta, ansixiyay ra'iisul wasaarihii uu soo doortay madaxweynaheena Sheekh Shariif Sheekh Axmed. mahaddaas horta adinkaas kale tusaale fiicanna waa noo noqotee, waayo mar walba waxaan ka warweli jiray xildhibaanada kala daadsan maadaama aan shacabki nahay dhibaatadana hayso. waxaa xallin kara oo wasiirada ama dowladda sare u gudbin kara, xuquuqda ay doori kara waa baarlamaanka. xildhibaan Xaaji Shukri Sheekh Axmed oo isagu ah xildhibaanka ugu daada weyn xildhibaanada Soomaaliyeed kuna hadlay magaca mudanayaasha ayaa tilmaamay in maanta ay farxad u tahay in uu arko dhalinyaro ku talinaysa in wax la dhiso, kuna dhiirigeliyay in dhalintu had iyo jeer ka qayb qaataan horumarka iyo dhismaha dowladnimo ee dalka. aad iyo aad waxaan uga mahadnaqaynaa dhalinyaradii soo abaabushii shirkan qiimada weyn leh oo wasiiradda Khadiija ugu horeyso. waxaan soo xasuusanaynaa dhalinyaranimadii la soo maray iyo dalkaan wixii laga soo maray. dowladnimadan maanta inta aan u fadhino dhalinyaraa keentay 13 dhalinyaro oo Soomaaliya oo leegad asaasti sababta u lahay. calankan raadiskiisii dagaaladii badnaay oo soo dhacay aniga waxbaan ka joogin 1948 iyo 49 ugu xumaay dagaalkii ha noolaato iyo waqtigii dhagax tuur. wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga Marwo Khadiija Maxamed Diiriye oo ugu dambeyn soo xirtay xafladda ayaa sheegtay tan iyo markii madaxweynuhu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha in qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir gaar ahaan ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ay wadeen dibadbaxyo ay ku soo dhaweynayeen ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. haddee wixii aad samayseen maahayn inaad u soo hormarteen, waxaad sidaad u soo hormarteen sidaas in lagu dhiirado oo gacan buuxda oo kala har lahayn laga garab istaago sidii ay dowladda xageed isugu taagi lahayd
loo garab istaago sidii dowladda ay dadka ugu shaqayn lahayd loo garab istaago sidii dadku u heli lahaayeen adeegyada bulshada maanta ummadda waxay haystaa system dhaxal u ah kaasaa u baahan in lagu tugsado oo dumarka iyo dhalinyarada ay ugu soo horumaraan si ay darahooda uga gaaraan ay uga baaqdaan shaqo la'aanta waxbarasho la'aanta caafimaad darrada ayaga iyo hooyadoodaba iyo ciyaalkoodaba haysata si looga baxo marka waa in idinku sii jooginayaa in aad dadaalkiina sii lama laabtaan oo la garab istaaga dowladda federaalka meelgaarka madaxweynaha ka yahay mudane sheekh shariif sheekh axmed sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaankana uu yahay mudane shariif xasan sheekh aadan ra-iisul wasaaraheedana uu yahay profesor maxamed cabdullaahi maxamed xafladani ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu taageerayay ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaysa xilli ay mudanayaasha baarlamaanku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha lana filayo inuu dhawaan soo magacaabo xukuumad tayo leh lagana rajeynayo in baarlamaanku buuq la'aan ansixiyaan. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.